kusoo dhawaada mar labaad iyo barnaamijkeeni oo halkii inooga sii socon doona kulanka fanaaniinta iyo mu'alifiinta dalka Norway isla mar ahaantaana waxaan ku nasanay hees aad u qaaliyo oo ay qaadisay fanaanada ayaan tale heestaasi oo ahayd muftaax dhegeystayaal daawadayaal haddii aan u gudagalno barnaamijkeena oo halkaa inooga sii socon doona waxaan ugu horeyn su-aasha weydiin doonaa abwaankeenan abwaan ciro runtii waxaa jirta hees si khaas ah aad ugu samaysay waxaan filayaa familkaaga qof ka mid ah heestaas waxaa qaadaa fanaan saacid bal intaanan horta kaa weydiin shaksiga aad u samaysay saacid bejka ugu horeeya heestaa laba heesood waaye marka hees xaaskiisu u sameeyey abwaan ciro heesna wuxuu u sameeyey gabar yar oo dhalay akhra yiraahdo heesna xaaskiisa qamar marka heesta qamar baan dooranayna sirma weyda curati oo siidad sagal aroorya inta arlada simay lagu soo sheexolaha ama subaxa waa beri suuradii cadceedo sintay oo falaara soo saartay nuurkii oo sabada geeda sayaxa iyo rayskiyo oo sabada geeda sayaxa iyo rayskiyo sin markaad u eegtana aanay cidi saloogay bal abwaan heesta manoo faahfaahinaysaa waxay horta aad baa umahadsan tahay heestu hadda fanaan saacid uu ku luqeeyey waxaan ka sameeyey dareen dhab ah siduu kuu sheegana waxaan saacid uu qaadaa laba heesood oo aniga ku saabsan biribaadkayga macnaa waxaan igi gooniya heesta hadda qaaday waa hees aan u sameeyey xaaskayga qamar baa la yidhaha heesta magaceeda maasha allah qamar aad baan u salaamin ayadana miraha iyo laxankana anaa sameeyey muusigana waxaa tumaya wiilka faraha loogu gutay bashiir hanuuniye si wanaagsan heestaas marka waxaan u sameeyey xaajiyadu xoogaa waxay istoy olol ama meelo kaleeto صح runta waxaad haddii marba hadday dareen dhaba laga sameeyey heesta waxay tahay story dhab ah qisada sidii tahay baa loo sheegaa waayo waxaan taariikh baa ka tegeysaa si wanaagsan marka waxaan heesta ku dareensiinayey in aan jecelahay iyada ayna u qalanto sidaa la adligeedna micnaha inay micnaha fanka soomaaliyeed hees kamid a heesaha ay noqoto lagu xasuusto marka heestan waxay kaga duwan tahay heesaha hadda jira heestan waxay ka hadlaysaa deegaantii soomaaliya hadday miyiga tahay hadday barwaaqadii tahay hadday roobka markuu soo baxo qoraxda ku dhacdo rayskii iyo barwaaqadii bay kamid tahay marka heestaasi waxaan u sameeyey gabadhan aniga xilahayga ah qamar sidoo kale hees kaleetuu qaadaa la yidhahda ikhra oo gabadhan anigu dhalay oo sagaal jir hadirtaan yani carruur badan baan leeyahay laakiin sababtaan iyada hees gooni ugu sameeya waxaa weeye carruurta iyaga iskaa kala jeclaysiiya gabadhan waxa weeye markii iskuolka ay ka yimaadaan carruurta kuwa kaleeto waxaa laga yaaba play station ay taagtaan ama tv fadhiistaan iyadoo haddaan sariirta jiifo way imaanaysaa weliba dheer kala qaad socda aabba ku nooshahay marka way mutaysatay ma kala jecel runta carruurtayda 5 carruuraan leeyahay 20 jir u weyn yahay 7 jir u yar yahay laakiin marka ikhra waxay u mutaysatay heestaas saas weeye shacabka sidoo kale waxaan mudan inaan meesha ka sheego oo aan rabaa barnaamijka inaan kaga faa'iidaysto waxaa jirta fanaanad caawa naga maqan oo fanaaniinta reer Norway kamid ah oo weliba gaar ahaan reer Oslo ayaan Tromso waxay u maqalaa inay Soomaali jirto weliba caasimadda Soomaaliya Muqdisho si fiican iyadana heestii ugu horreysay ee ay fanka kusoo gasho waxaan ahaa abwaankii sameeyey laxankana waxaa lahaa cabdishir joqle muusigana waxaa sameeyey bashiir hanuuniye oo heestii geediyo magoole وهذا أدمر في عندك
waxaan filayaa inay tahay dareen dhaba waanan ka faa'iidaysanay isla mar ahaantana chance baan u helnay inaan ogaan karno heesta qamar absolutely isla mar ahaantana qamar oo chance u heli doonta fursad u heli doonta inay daawato هذه waxaan filayaa inay mabsuud markii la sameeyey mid ka badan ee caawa maadaama aad faahfaahin badan ka bixisay aad bulshaweynta soomaaliyeed u sharaxday inay dee ku noqon doonto هورين الدية وريستي maasha allah مريكت الدية maasha allah meelo fara badan oo kalena inay ka dhegeysanaysa ayaan fili doonaa نور تي في وقرا waa si نور صوت تي wanaagsan في absolutely muna نعم waxaan rabaa su-aal yar inaan ku weydiiyo maadaama aad أرين fanka أرين jeceshahay. يربط الصلاة رالي si fiican ومعناها كوساس وسوقانتها si wanaagsan وأنا كيف فايزين برامج كان waan kusoo dhaweynaya كنا هالقبصانة يهستي هاي أيان فنانة دوين أدلو جعلي هاي صح أيان طلع ayaan kale هستي هاي وجهي هاي قريب waan gartaa واحد شفت هست أنا دوان سمي صح أنا هبين كبد بوري فضية إلا أبوان كبركي لقد قضى مفتي صلوات جاي si wanaagsan يا saas baa waxay ugu soo garaacaynin gambalada guriga waan gartaa ilaa Yurub baa la yimid ama North America iyo dhibaato badan baa iska jiri kartaa si fiican markuu igu soo garaacay gurigii oo ninkii ka furay ninkii boorso wataaba war xagee ka timid wuxuu yiri saacada baa banaanka joogaayo waana baraf baa ta'ay waa winter waa minus 10 minus mala abwaan boorso ma wadana bacdi madowga markii ugu horreysay sheekada cusbad baa la kala isku jiray boorso lama gadan jirin laakiin hadda nin walba boorsiisa uu siin kartaa gurigu siin kartaa maalin la saaray ma garanayo fikir wanaagsan ha waa tashan haddaan ragnahay marka boorsu watay habeenka ma gartaa ninkii marka aad gurigu yimid oo reerkii iyo ciyaalkii waa iyu jifaan oo shaah baan u kariyo waa fadhiisan wuxuu yidhi saacadda صح baa banaanka usoo baxay waan gartaa habeenkan waxaan isku dayay bal inaan runtii anigu abwaan maahay abwaan way jiraan laakiin nin isku daya baan ahay inuu miro sameeyo صح aan wuxuun ka iraahdo wadciga haystan wacdiga haysta marka hees waxaa jirta aan ka sameeyey ama bacda madow ama boorsadaas banaanka la isu dhigayo qabowaha barafku da-ay kolley dadka soomaaliya qoraxda joogana inay dhegeystaan waa aad bay u wanaagsan tahay si wanaagsan heesta eryadeed waxaa ka mid ahay صح markuu barafku da-ayo maynuskuna ku badan yahay ما نسكت بدنا maynusku waa qabowgu markuu saa'id yahay si wanaagsan markuu barafku da-ayo maynuskuna ku badan yahay bala qabta ninkii qaba bacdiisay u tuudhaa